noo soo baxay inaan arigan ku dhaqaaqno si aan anagana waxa waaye hadal hees badan uga dhalato oo waxa waaye nagula mashquulo intaas naga heed laakiin waxa hadda aan isdhigi karnaa mistake koowaad aan gashan waxay tahay inaan TV-ga been aan u sheegno oo familkay qaar kamid aan ku dhaadeen soo wacan ilaa ninka waryaana wareysanayo waa nin yaqaan aniga yaqaan familkayga yaqaan marka familkay markuu soo wac waxaan ku dhahay ninkaas maxaa la yiraahdaa waxa ka jira ku dheh huu qaba ku dheh waa ku ognaa ku dhaha saas ogeed maadaam oo u rumaystay familkayga ogeed igu wareystay marka kadib markii waxa waaye oo wixii oo dad badan soo falceliyeen ama dad badan igu dhageen oo waxa waa meel walba la soo warwareejinaaye waxa waa wixii waa laga daba tagay ciise koona asxaabo isku dhow ee wax walba ka wada dhaxeeyaan waan nahay laakiin inay naagtis ma noqon karno ina beentaas sheegno waxa nagu kalifay aad TV-giyo noo imaado wareysi noogu yimid ma dhigi karna anaga waxa jileynay naga bax ileen ayaga ma og inaa wax jileynay xaqiiqo run ay u heestaan sidaas la ajligeeda u sameeyna anaga inaa xaqiiqo uga dhigno midaas waa ka raali gelinayaa boqolkiiba boqol TV-ga waxa wallahi saa u muujin gurigan ina anaga aad deganahay maalintii oo dhan digsiga la raadina qaandad waa la raadina cusbad waa la raadina wax meel lagu ogyahay ma jiraan soo maaha marka waxa waaye wax yar oo jilina iska ahayn Soomaalida inaa mashquulina iska rabnay waxa soo dhan waxay naga ahaayeen wax matalaad iyo waxa anaga YouTube-keena ugu talagalnay waxa anaga soo abaabulay qorshe markii hore anaga keensanay fikrad markii hore anaga keensanay ugu dambeyntii daawadayaal saddexaas Master Malabsada ayaa afkiisa mar labaad isku burburiyay waxaana uu telefishinka caalamiga Universal mar labaad ku booqdeen hooygu ka degan yahay magaalada caasimadda ee Muqdisho kadib markii bulsho fara badan oo Soomaaliyeed shaki ka muujiyeen dareen gaar ah in arintaasi ay tahay mid dhab ahaan u jirta balse telefishinka caalamiga Universal oo dhacdadan kadib kala kulmay baraha bulshada in uu baahiyo warbixin been ku salaysan ayaa haddana booqday hooygu ka degan yahay Master Malabsada caasimadda ee Muqdisho waxaana Master Malabsada halkaas lagu yeeshay wareysi ku saabsan xaqiiqada dhabta ee guurkiisa waxaana uu soo bandhigay sir fara badan iyo dana gaar ah ka lahaa guurkaasi inuu baraha bulshada ku soo faafiyo balse daawad xogtan oo dhameystiran intaan ku soo gudbin si naxariis la muuqaalkan inuu leeyahay hadii aad warbixinada caynkan oo kala ah sida degdeg ah u soo gelin baraheena bulshada fadlan muuqaalkan leeyahay sidoo kale kanaalkeena subscribe saaro gambaleelkana furo maasanid كان هو مستر حسن ملبسة saddexaas leh waa wiil dhalinyaro oo ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho social media ayaa wuxuu ku soo kordhiyay wax la yaab leh taasoo ahayd inuu baraha bulshada wala soo galay arin ka yaabisay dad fara badan oo Soomaaliyeed taasoo ahayd inuu saddexaas qabo isla markaasna hal guri u degan tahay ujeedada wiilkan ayaa waxa uu ku sheegay ka lahaa inuu baraha bulshada saameyn uu ku yeesho isla markaasna hadalhayntiisa ay ka dhalato in dad fara badan oo social media caanka ah reaction ka bixiyaan ama falcelin haddaba ugu dambeyntii wiilkan dhalinyarada ayaa telefishinka caalamiga Universal TV ka raali geliyay beentii uu soo dhoodhoobay ee baahiyeen ayaga sidoo kale waxa uu sheegay ujeedada gaarka oo kala ah in ahayd inuu adduunkii bulshooyinka Soomaaliyeed oo dhan uu ku sameeyay barankii ugu khatarsanaa sanadda 2020 run ahaantii ujeedkii koowaad ee ahaa in uu gaaray rikoorkaas uu gaaray Master Malabsada saddexaas leh hadsaatee warbixintan la soo gudbiyay soo nabahay telefishinka caalamiga Universal ayaa daawaday in ka badan 5 milyan qof sidoo kale warbixintan labaad ee laga soo diiray ayaa iyadana intaas oo kale in ay daawadeen taxaado kooban gudahood ayadoo ku jirto barta Facebook haddaba xaqiiqda dhabta ah ee ninkan iyo ujeedadu lahaa ayaa waxay ku soo caano shubatay ayadoo dad fara badan oo Soomaaliyeed u hambaliyeen isla markaasna ay la yaabeen gabdho fara badan oo Soomaaliyeed jiritaanka arintaas uu sheegtay saddexaas leh Master Malabsada iyo ujeedada gaarka uu ka lahaa balse xaqiiqda dhabta ayaa ah in wiilkan dhalinyarada ay ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho uu doonayo oo kaliya inay u kala kacdo xaruntiisa ganacsi oo lagu gado waxyaabaha dumarka isku carfiyaan iskuna cadeeyaan ee cosmetics loo yaqaano ujeedada dhabta wiilkan ayaa waxay ahayd inuu baraha bulshada ku yeeshay saameyn gooni ah sidoo kale xaruntiisa ganacsi ay soo booqdaan dad fara badan oo doonaya inay arkaan wiilkan mar baraha bulshada sida waalida uu qabsaday isla markaasna mucjisada ku noqday dad fara badan oo Soomaaliyeed warbixinada iyo waxyaabuhu la soo galay sidoo kale wiilkan dhalinyarada ayaa waxa uu sheegay in ay arintan ka ahayd in uu barankii ku sameeyo guud ahaan Soomaalida dunida joogta isla markaasna uu rabay inuu noqdo boqorka barankiyada Soomaaliya waa wareeg wallahi Soomaali waa tagtay sidoo kale telefishinka caalamiga Universal
oo muuqaalkan hore u baahiyay isla markaana ahaa telefishinkii ugu horeeyay ee warbixin dhameystiran ka soo diyaariyay wiilkaasi Master Malabsade ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in telefishinka markay u tageen ay la hadleen waalidiintii dhalay wiilkan isla markaana uu asaga waalidiinta ku qanciyay inay dhahaan arintan waxba ka jiro sidoo kale wuxuu soo sheegay in waalidiinta dhalay asaga iyo gabdhaha ay arintan wax ka ogaayeen isla markaana ay doonayeen inay saameyn ku yeeshaan social media ugu dambeyntii wiilkan dhalinyarada ah ayaa waxa uu sheegay ujeedada rasmiga oo ka lahaa arintan inay ahayd inuu barankii ku sameeyo bulshada Soomaaliyeed sidoo kalena oo caan ku noqdo ujeedada labaad oo heedna inay saameyn weyn ku yeesho social media reaction laga bixiyo muuqaalka soo dhigay ama falcelin ay ka bixiyaan dadka ugu caansan social media youtuberada tiktokleyda facebookarada iyo kuwa dhammaan dadka social media wax ku qora sidoo kale wuxuu rabay saameyn gooni ah inuu ku yeesho social media dhacdadiisana ay noqon mid la hilmaamo oo sanadkan 2021 dunidan ku sii baaqi haata wuxuu sheegay in arintan dhowr mar ay ku soo dhacday in baraha bulshada uu la soo galo waxyaabo Soomaalida ka yaabiya isla markaan uu sheego in ay barankii ahayd wiilkan ayaa wuxuu sheegay in arintaas ujeedada uu ka lahaa ay ahayd in uu doonayay in Soomaalida uu ku sameeyo barankigaas oo ah in ay arintaasi ayna ahayd mid gabi ahaanba been abuur ah wala Soomaalidu way halawdo maalinta ka sii dambeysay waxyaabo la yaab leh oo social media lagu dhaxarka wiilkan marka koowaad wuxuu sumcad dilay gabdhahaasi la soo fariistay sidoo kalena wuxuu sumcad dilay nolosha qoysaska Soomaaliyeed asagoo halkaas ku sheegay waxyaabo fara badan oo been ah taasoo ka baxsan dhaqankeena diinteena iyo sidoo kale jiritaanka ummadda Soomaaliyeed waxa uu sheegay in saddexdan gabdhood iyo asaga ay degan yihiin laba qol wuxuu sidoo kale ku ciyaaray sharafta iyo nololaanshaha qoysaska Soomaaliyeed ee qaabkii u nool yihiin wuxuu sheegay in ay iska soo dhaxdoortaan gabadhu habeenkaas la galmoonayo anoo warka idin qirnayn gabadhu habeenkaas la galmoonayo inay ay saddexdooda iska soo doortaan isla markaasna ay u keenaan asaga ayna yiraahdaan hebelow gabadhan ay caawa nasiibna u yeelatay baqtay nasiib baa soo tuuranay caawa geemamkeeda si waa sida aniga waxaan dhahay ma daawday eedina waa sida afkiisa aad ka soo aragteen oo asagana sheegay balse wuxuu islaa wiilkan waxa caan dhal ku noqon kartaa sida uu sameeyay afar xaasle Master Take iyo Sufyaan wuxuuna isiri waxa caan ku noqon kartaa kaliya inaad baraha bulshada la soo gasho dhaqan xumo inaad aad saddexaas ayaan qabaa inaad waxyaabo fara badan oo muuqaalkaada iyo warbixintaada dareen gooni u yeelaya aad u sameeysid iyo waxyaabo fara badan oo kale ujeedada ugu dambaysa ayaa ah in wiilkan Soomaaliyeed ka lahaa arintan inuu ku noqdo kaliya inuu caan ku noqdo isla markaan uu doonayay in reaction iyo falcelin kaga imaado dhinaca youtuberada iyo sidoo kale dad kale social media isticmaala TikTok Facebookarada iyo Instagram iyo meel walbaba ay asaga lagu hadalhay isla markaana saameyn weyn gooni ku yeesho arintaas uu horgashay laba magac uu ku yeeshay oo Malabsade hadda magaciisa wuxuu noqday Malab laga yaqaan Soomaalida sidoo kale xaruntiisa ganacsi ee Rimasa Cosmetics Center ay ku taalo Odweyne waxay noqonaysaa xarun bari ay soo booqan doonaan dad fara badan oo Soomaaliyeed ku nool magaalada caasimadda Muqdisho ku dhawaad 5 milyan ee ku nool caasimadda lagama weynayo 5,000 qof oo xaruntaas soo booqatay isla markaana wax ka iibsata si ay u arkaan saddexaas Master Malabsade waa xaqiiq jirta hadaysan arintaas wiilkan fikirkiisa dhinac marka laga fiiriyo duwaanin dantiisa yaqaan waana mid u keeni karta inuu dhaqaale ku abuuro sidee uu dhaqaale ku abuuraya marka xaruntiisa ganacsi ee Odweyne ku taala lagu iibiyo cosmeticska tusaale ahaan 5 milyan oo qof oo Muqdisho ku nool 5 milyan ee qof Muqdisho ku nool lagama weynayo 5,000 qof oo kaliya ay xaruntaas booqato waa xaqiiq jirta 5,000 oo qof oo xaruntaas soo booqato isla markaana isdhaada bulshadaas 5,000 dhan soo fiiriya Xasan Malabsade oo wajigiisa soo arka lagama weynayo taasna waxay u noqonaysaa asaga faa'iido aad u weyn oo waxa laga gadanayaa badeecada halkaas u taalo wuxuuna helayaa faa'iido aad u fara badan daawada muuqaalkan si share gareeyo asxaabtada la wadaag muuqaalkan like ku qabo adoon like gareen oo xilligan soo gaaray oo waxa dhigay cimriga lagu ma sugootiyo xilligan baa soo gaartay muuqaalkan like garee ma sanid